Ma isweydiisay mar haddii aad hesho lacag badan, magac iyo guul muuqata, laakiin qalbigaaga uusan deganeyn, ma guul baa? Maanta dad badan waxay ku tartamayaan lacag, ganacsi, muuqaalo, nolol qurux badan, laakiin su'aashu waa qalbigaagu ma degan yahay? Aan sawirka bixiyo laba qof. Qofka koowaad lacag buu haystaa, shaqo fiican ayuu haystaa, dad badan baa yaqaan, waa noloshiisu way u fadhidaa, laakiin marka uu kaligiis noqdo, walwal baa jira, cabsi baa jirta, hurdadiisi waa ay liidataa. Qofka labaad nolol fudud iskaga jira, lacagtiisa haba yaraato, laakiin salaadii ayuu ku dadaalaa, quraan akhriska ayuu ku dadaalaa, waana qanacsan yahay. Marka uu sariirta jiifto, qalbi degan buu dareemayaa. Haddaba midkee guul badan? Guusha dunidu waa muuqaal, guusha qalbiguna waa dareen. Micnaheedu maahan inaad lacag iska dhaaftid si aad qalbi degan u heshid, waa inaad qalbigaagana ila Allah subhanahu wa ta'ala aad ku xirtid, lacagta iyo adduunkan aad gacanta ku heydid. Sababta dad badan u walwalaan inkastoo ay guuleysteen waxay ku tiirsan yihiin dunida kaligeeda. Qalbigu wuxuu ku xiran yahay lacag. Guushu waxay u arkaan dhammaad, ma aha imtixaan u arkaan, laakiin xaqiiqadu waa lacagtu ma dejiso qalbiga. Qalbiga waxaa dejiya xasuusta Allah subhanahu wa ta'ala iyo dhikriga Ilaahay. Waxa qalbiyada ay ku degaan. Mararka qaar Allah subhanahu wa ta'ala qofku wuxuu siiyaa wax kasta oo rabo si uu u ogaado in qalbiga aan laga buuxin karin wax aan isaga ahayn oo Ilaahay dhikrigiisa mooyaane. Waxa qalbigeena buuxinaya waa Ilaahay xuskiisa, ku xiritaankiisa, salaada inaynu joogteeno, quraan akhriskeena. Waxyaalahaas ayaa qalbiga buuxiya oo dejiya. Lacagtu waa sax, nolosheena ay ka mid tahay, laakiinse gacanteena inaysan dhaafin ayay tahay. waxaynu ku noolnahay nolosheena oo adduunkeena inuu qabsanayno. Haddii aan gacanta ku hayno lacagta, qalbigeena uu ku jiro Allah subhanahu wa ta'ala xuskiisa uu ka buuxo, nolosheena deganaan iyo guul oo dhameystiran oo dhab ayaan gaarayna. Qalbi degan ma aha mid dhibaato la'aan ah, waa mid leh xiriir joogto Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay. Waxyaabaha qalbiga dejiya waxaa ka mid ah salaada oo waqtigeeda lagu dadaalo, dambiyada oo laga fogaado, mar walba Allah subhanahu wa ta'ala la xuso. Nolosheena qanacsanaan buuxda ayay dareemaysaa, qalbigeenana waa uu dagayaa. Marka qalbigaaga ku xirmo Allah subhanahu wa ta'ala, xitaa haddii aad lacag yar leedahay, waad deganaanaysaa oo waxaad nolosha kaga jiraysaa qaybta deganaashada. Walwalkii ayaa kaa baxaya, murugo ayaanad dareemeynin. Laakiin haddii qalbigaaga ku xirmo lacag kaliya, xitaa haddii aad malaayiin dollar heshid, weli qalbigaaga ma degnaanayo. Cabsi, problem, walwal ayuu qalbigaaga mar walba ku jiraya. Marka aad kaligaa noqoto, waxaad ka fikiraysaa culayska aad dareemaysid. Qalbiyaduna waxay ku degaan kaliya xuska Allah subhanahu wa ta'ala, ma ahan inaad malaayiin dollar aad gacanta ku heshid, waa inaad Allah subhanahu wa ta'ala oo qalbigaaga ku xiran yahay, mar walbana aad xusaysid. Guusha dhabta ahna waa midaas. Maanta waxaan rabnaa guul degdeg ah, inaynu ciyow lacag sameyno, laakiin ma rabno inaan sabarno, aan dulqaadano, qalbi nadiif ah aan la nimaano. Waxaan ku mashquulsanahay dhismaha nolosha dibadda kaliya, laakiin ma dhisno qalbiyadeena. Gudaheena waxa ku jira, ruuxdeena ma dhisno. Waxaana loo baahan yahay inaynu gudaha marka hore soo iska dhisno, kadibna aan dibadda sii dhisno. Micnaheedu waxay tahay in qalbigeena, jirkeena, ruuxdeena aan Allah subhanahu wa ta'ala ku xirno, diinkiisa aan ku dadaalno, oo nolosheena aan buuxin halkaas. Maxaa yeelay waxaana sugayso nolol ka dheer, aakhiro ayaana sugayso. Waana inaan u sii diyaar garownaa. Dibaddana aan iskaga dhisno nolosha adduunka, inaynu hanti yeelano, inaynu nolosheena isku filnaansho gaarno, aan ka maarano inaan bini'aadan aan hoos joogno. Intaasna waa nolosha adduunka guusheeda. Intaasna waxaa ka sii muhiimsan inaa qalbigaaga Allah subhanahu wa ta'ala ku xiran yahay mar walba. Haddii gudaha oo dumo oo halaabo uusan Allah subhanahu wa ta'ala ku xirnayn, banaanka ma sii jiri doono. Nolosha dibadda ah ma sii jiri doonto, oo waxay noqonaysaa mid nagu adkaata. Ma xumo inaad guul rabto, ma xumo inaad lacag rabto, laakiin ka dhig niyadaada mid sax ah. Lacagta u isticmaal wax wanaagsan oo aakhiradaada iyo adduunkaaga anfacaysa. Ha ka dhigin qalbigaaga mid ku xiran dunida kaliya, ka dhig mid ku xiran Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbigaaga ha ka hormariyo mashruucaaga. Guusha dhabta ah waa marka aad ganacsato noqoto oo qalbi degan aad leedahay, marka aad shaqaysato aad qalbi degan leedahay, marka aad seexato qalbi degan aad ku seexanayso. Nolosha adduunkana waxaa noogu muhiimsan laba arrimood weeyaan. Midda koowaad, inaynu qalbigeena, ruuxdeena aan diinka Allah subhanahu wa ta'ala iyo xusitaankiisa aan ku xirno, oo qalbigeena waxa uu ku degaa waa quraanka, waa salaada, waa sadaqada, waa wanaaga iyo khayrka. Saasna ay tahayna adduunkeenana wuxuu noo yahay inaynu ku noolaano si xornimo leh, inaynu ku noolaano anagoonan duleysnayn, inaynu ku noolaano anagoo isku filan, inaynu ku noolaano anagoonan dad u baahnayn, oo aanan
dad ku tiirsaneen nolosheena, isku filnaansho buuxda. Noloshan midaas ayaa u khayr badan, inaadan mar walba aadan dad wax weydiisanin oo aadan baahidaada bini'aadan aadan la wadaagin. kaliya inaad ka maaranto inaad ku dadaashaa. waxa kaliya aan u baahanahayna waa Allah subxaanahu wa tacaala, aanan ilbiriqsiye aanan ka maarmin. maaha inaad bini'aadan wax badanaa baahideena u sheegano aan weydiisano, looma baahan. taasi inaynu ka maaranno waa inaynu ku dadaalnaa. guusha dhabta ee dunidana midaas ayay noqonaysaa, inaad bini'aadan ka maarantay laakiinse Allah subxaanahu wa tacaala aad u baahantaa kaliya. guusha dadka arkaan ma ahan dunida midda ugu weyn. guusha dhabta waa marka aad kaligaa tahay, qalbigaagu ma degan yahay. haddii aad rabto inaad noqoto qof guuleysta, ha dhisin kaliya jeebkaaga ee dhis qalbigaaga iyo ruuxdaada. marka qalbigu sax noqdo, dunida si sax ay kuugu shaqayn doontaa. oo haddii qalbigaaga uu Allah subxaanahu wa tacaala ku xiran yahay, adduunkana gacanta ayaada ayuu ku jiraya. labadaba Allah subxaanahu wa tacaala ayaa laga helaa, aakhiro iyo adduunba. qalbi deganaan marka inaynu Allah subxaanahu wa tacaala ka raadino adduunkeena iyo aakhiradeenaba intaba, waynanu ka raadinin meelo kale. adduunkeena halkan waa meesha aan ku noolnahay. waxaan nalaga baahan yahay inaynu ku noolaano si wanaagsan, si sharaf leh, si ixtiraam ku jiro nolosheena. aynu dadna mar walba waxaan kusoo celinayna waa inaan dad ka maaranno, baahideena aanan bini'aadan la wadaagin. Allah subxaanahu wa tacaala ilaah qalbiyadeena deganaanshaha siiyo, nolosheenana ha ka dhiga mid guuleysata aakhir iyo adduunba. waxa aan raadinaynana waa inaan guul gaarno. guusha ugu weynna waa in markaad geeriyootid oo aakhir aad tagno, inaynu naar ka badbaadno, jannada Allah subxaanahu wa tacaala aan galno. waana guusha ugu weyn ee qof walba maskaxdiisa ku hayo muslimna. inta ay noolnahanana aan ku noolaano si sharaf leh, si ixtiraam ku jiro, si aanan bini'aadanka aanan u baahnayn inaan u noolaano. haddaad bini'aadan mar walba u baahatid, ku xirnaatid, noloshaada way burburaysaa. maxaa yeele bini'aadanku ma jecla in mar walba wax la weydiisto, mar walba aad baahidaad u sheegatid, ku arkaya mid uu ku dhibsanaya. laakiin Allah subxaanahu wa tacaala haddaynu baahideena mar walba u sheegano, Allah subxaanahu wa tacaala wuu ku farxayaa, wax walbana wuuna siinaya. muuqaalkan haddii intaan aad daawatay, muuqaalka like saar, kuna soo biir miiraad, halka aan kaga hadalno waxyaalaha nolosheena anfacaya, iimaankeena, adduunkeena.